بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد محمد أحمد دكتور بانا كسر وادجنا الكيني دكتور بانا سيدا هوري كهاللينا يبقى وحاوضنا برنامجكي أو هاللينا سيستميانا جيرك أوليه هي هوري وحاكسو هذا لنا إلا دور سيستم أو كميت أها مركا هابديسكا مرخها هابديسكا نفسشدا هابديسكا لفها أو لو يخان سكيليتال سيستم iyo sidoo kale habdhiska maqaarka maanta waxaa ka hadli doonaa insha Allah habdhiska la yiraahdo digestive system ama habdhiska cunto shiidida ee jirka sida wada ognahay qofka markuu cunto qaadanayo wuxuu qaataa cunto weyn ah oo xadigeedu markuu oo ilaa markaan ku qiyaasan ilaa gacan oo qofka uu qaadan karo ama jirka markuu ay gasho cuntada iyadoo sidaas ay jirka ma wada isticmaali karo danta laga leeyahay waxay tahay systemkan cuntadii weyneed oo qofka afka geliyay in ay noqoto waxyaabo yaryar ah ee mari karto xididada dhiiga marka la xididada dhiiga ay mari karto waa dareemi kartaa wax aad u yar in ay yihiin marka waxyaabahaas si ay u noqon sida u noqoto cuntada ee jirka u gasho ee xididada dhiiga loo geeyo ee meeshii cuntadaas loogu baahnaa loo geeyo danta laga leeyahay taas waay sababta cuntada loo qaadanayo waxay tahay waxa ognahay bini'aadamka aan dhahay baabuurta waxay ku shaqeeyaan benziin la inaysan dhaqaaqaynin ayaa ognahay bini'aadamka sidaas la mid ah benziinkiisu waxay tahay marka cuntada qofka hadduu ka go'o ama cunto uu qaadan kari waayo qofkaas energy ma helayo hadduusan energy helinna wax oo dhaqdhaqaaq ama nololba ma jirayso intaas kadib waxaa ka hadli doonaa systemkan wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo dhowr lagjarood haaf ayaa kaga dhigi doonaa lecturekan ugu horeeya hadda waxaa kaga hadli doonaa maanta marka hore introduction inaan u sameyno systemkan sidoo kale inaan ka hadalno xibnihiisa qeybo ka mid ah tusaalo kale inaan ka hadalno oral cavity-ga digestive system habdhiska cunto burburinta habdhiskan wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo dhowr xibnood habdhis markaa dhahno waxaa khasab ah xubno in la helo oo isku wada shaqeynayaan marka digestive systemkan qofka markuu baranayo maadadan waxaa la yiraahdaa marka gastroenterology ayaa la yiraahdaa qofka ku takhasusay oo batan waxaa la yiraahdaa gastroenterologist qofka oo takhtarka u ah waay marka habdhiska marka hadda xubnihiisa wax yar ka tilmaamna waxaa ka mid ah xubinta ugu horeysa waxaa la yiraahdaa marka oral cavity oo ah afkan sidoo kale waxaa ku xiga varnakiska oo aan respiratory systemka kaga hadalnay sidoo kale waxaa ka mid ah esophagus ama hunguri caddaha ama hunguri mareenka waxaa ka mid ah calooshi ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah mindhiciraha oo ah labo mindhiciro waaweynka iyo mindhiciraha yaryarka intaas ayay ka kooban tahay waxaa jirta marka xibno kale oo asaga xibnahan caawinayo oo la yiraahdo accessory organs waxaa ka mid ah marka ayaga salivary gland oo afka laga helayo sidoo kale waxaa ka mid ah beerka waxaa ka mid ah xibin oo beerka ka hooseyso oo la yiraahdo Englishka oo la yiraahdo gallbladder sidoo kale waxaa jirta xibin ka hooseyso xibin yar oo ku taalo caloosha hoosteeda oo la yiraahdo pancreas intaasna waxaa la yiraahdaa marka accessory organs of digestive system hadda gudu usii galno marka shaqooyinka uu systemkan qabto way badan tahay ilaa waa soo koobina hadda soo koobna waxaa ku soo koobina ilaa 3 shaqo shaqada koowaad marka waxay tahay in ay ka qayb qaadato cunto burburinta in ay sameyso cuntadii marka in uu qaato markuu qofka afka geliyo in ay noqoto cuntadii waxyaabo jirka la falgali karto xididada dhiiga mari karaan labo waxay leedahay faa'iido kale shaqada kale ee leedahay systemkan waxay tahay in ay qofka markuu cuntada qaato wixii cuntada uu qaatay wixii nafaqo leh in cuntadii oo laga nuugo oo wixii oo qashin ahna oo la iskaga saaro wixii oo nafaqo leh oo jirka u baahan in lagu nuugo shaqadaasna oo ka dhaxdhicaysa marka mindhiciraha yaryar shaqada saddexaad ee noo qabato waxay tahay marka in wixii jirka markii cuntadii la soo cunay wixii nafaqo lahaa jirka uu ka reebtay wixii qashin ahna isna in la iska saaro oo excretion la sameeyo oo wixii qashin saare iyadana waxaa khusaysa marka waxaa khusaysa large intestine ama mindhiciraha waaweynka intaas waxay shaqooyinka ay qabato systemkan waxaa jiro magacyo kale oo loo yaqaano oo waxaa ka mid ah gastrointestinal system oo loo yaqaano GI system
sidoo kale waxaa la yiraahdaa alimentary canal, sidoo kale waxaa la yiraahdaa gut system. Systemka marka wuxuu ka kooban yahay waa tubo aad iyo aad u dheer oo ka bilaabanaysa marka afka ay ka bilaabanaysaa ilaa iyo waxay soconaysaa meesha saxarada ay ka soo baxdo. intaas tubo soconaysa waaye dhererkeeda waxaa lagu qiyaasaa ilaa 9 mitir. sidoo kale waxaa la dhihi karaa feet ahaan marka loo xisaabiyo waxay noqonaysaa marka ilaa iyo 30 feet oo kale, ilaa 30 feet ayay noqonaysaa. mitir ahaan 9 mitir iyo wax la jiro ayay noqonaysaa. marka systemkan waa system aad iyo aad muhiim u ah. hadaa ka bilaabno marka oral cavity-ga oo ah qaybta aan hadda ka hadli doono. oral cavity-ga waa afkan wareega ah. waxaa ku jiro xubno aad iyo aad u muhiim u ah oo digestive systemka aad muhiim uga ah. marka ugu hore afka intaanan gelin ka hor afka waxaa ka horeeya wax la yiraahdo bishimaha ama faruuraha. iyaga waxay tahay albaabka ugu horeeya ee laga galayo afka. cuntada qofka markuu rabo inuu cuno asigoo faruuryahan kala qaadan cuntada afka ma gelin karo, waa ognahay taas. marka faruuryahaas afka markuu cuntada qofka saas u sii geliyo ko waxaa ka mid ah marka faruuryahaas waxaa ku xiga marka ilkaha waxaa ku xiga marka daamanka, waxaa ku xiga maxaa la carabka, waxaa ku xiga dalkhada, waxaa ku sii xigto xuumanka. hal ayaa u sheegi doonaa. hadaa ka bilaabno marka dhanxanaga. dhanxanaga jiro oo dhanxanaga waa naqaanaa. dhanxanaga shaqadiisu waxay tahay in uu kala saaro oral cavity-ga iyo nasal cavity-ga in uu separate ka dhigo mid walba oo cavity-giisa uu gaar u ahaado. hadaa si kale u dhaho mid walba in uu godkiisa gaar u ahaado, aysan naqanin laba god isku furan. waxaa sameynaya marka waxay tahay dhanxanagaas ayaa sameynaya. laba loo qeybiya ayaga, soft palate iyo hard palate, mid adag iyo mid jilicsan. qaybta marka qaybta soo horeysa dhanxanaga qaybtiisa soo horeysa waxaa la yiraahdaa hard palate, qaybta adag waaye. qaybta ka dambeysana waxaa la yiraahdaa soft palate ama qaybta jilicsaneed. waxaa noogu xiga marka uvula wax la yiraahdo ama dalkhada. dalkhada waa naqaanaa qofka markuu afka kala qaado xubintaas oo hadda sawirka ugu jeediin oo saas soo laalaacdo qaybtaas la yiraahdaa marka dalkhada. dalkhada shaqooyin ayay qabataa. shaqadiisa waxaa ka mid ah marka in ay ka qayb qaadato codska marka la soo saarayo. cod soo saaritaanka ayay ka qayb qaadataa. qaybtii respiratory systemkan waxaa ka soo hadalnay xubinta khaas ku ah in ay codka soo saarto in ay ahayd xubinta loo yaqaano varnakiska aan dhahe voice boxka xubinta loo yaqaano oo la yiraahdo larynx. larynxiska qaybtaas ay kasoo bixaysay waliba waxay kasoo bixaysay two vocal cords-ka u dhaxeeya qaab waxay kasoo bixaysay oo vibration ah. sidoo kale waxay ka qayb qaadataa dalkhada waxay tahay meesha hingada iyo waxyaabahaas ka imaanayso. waxaa noo xiga marka xuumanka. xuumanka waa ka hadalnay. ayaga waxay leeyihiin waxaa la yirahdaa lymphatic drainage oo waxay ka qayb qaataan maxaa la yirahdaa wasaqda jirka. qofka markuu cuntada sii cuno oo siilahay waxyaabaha wasaq la socoto cuntadii iyo waxyaabaha pathogenska meeshii ayay ku hirayaan. marka cuntadii meesha ayay ku dhegdhegayaan, meeshii ayay qabsanaysaa. hadaa intaas ugu baxno marka waxaa galaynaa carabka. carabka waa xubin kale aad muhiim u ah oo asaga wuxuu muhiim yahay qofka markuu cuntada afka geliyo. shaqada ugu weyn ee qabato waxay tahay afka markii cuntada la geliyo waxaa jiro salivary gland wax la yiraahdo oo soo deynaya dheecaan. dheecaankaas marka waxaa la yiraahdaa saliva. salivaas marka la soo deeyo saliva wuxuu ka saacidaa marka cuntadii afka ku jirtay wuxuu ka saacidaa saliva in ay noqoto cunto qoyan kadibna noqoto cunto la burburin karo. waxaan naqaanaa qofka markuu hadaa tusaale soo qaadano qofka markuu afka geliyo rooti khaleela uu goosto intuusan ruugitaanka ama calaaliska uusan bilaabanin ka hor qofka wuxuu dareemaa afkiisa inay kasoo buuxsamayaan dheecaamo. dheecaamankaas marka ayaa la yiraahdaa saliva. waxaana soo dayaa salivary glandska. marka dheecaanadaas qofka waxay ka caawinaysaa tan hadda sheegna waa cuntadii inay qoyaan noqoto, sidoo kale cuntadii wixii carbohydrateska in ay burburiso ayay ka qayb qaadataa. marka hadaa usoo laawana carabka. marka carabka wuxuu ka kooban yahay saliivahaas aan dhahe. marka saliivahaas oo la soo deeyay ayuu wax ku walaaqaysaa cuntadii si ay cuntadii dhan u wada gaarto saliivahaas laga soo deeyay salivary glandska. shaqada kale ee carabka uu muhiim ku tahay waxay tahay waxaa ku jira carabka wax la yiraahdo surface ugu horeeya carabka waxaa saaran qaybtan kore markaa ka fiirsid carabka wax la yiraahdo testipads. testipadskaas muhiimada ugu weyn ee nooleedahay waxay tahay qofka markuu afka cunto geliyo
waxa sheegayo qofka cuntadan in ay ku badan tahay sokorta, in ay ku badan tahay maxaa dhaha cusbada, in ay macaan tahay, in ay qaraar tahay, in ay dhanaan tahay. waxa sheegayo qofka uu ku dareemayo waxay tahay marka test buds kaas ayaa sheegayo waxaan in ay qaraar yihiin, macaan yihiin, kadib qofkii wuu dareemaya